qaawan half naked oo wuxuu yiri maxay tahay bajaamo xiran bay iga soo baxday waan naxay buu yiri waan booday waxaan ku buu yiri what's going on marka gabadhu absolutely Soomaaliyeed maaha gabadh la soo kareystay waa gabadh cadaan waan booday waxaan ku buu yiri what's going on room khaldan baan maxaa meesha ka jira what's going on waan naxay buu yiri kabacdina waxay igu tiri buu yiri gabadhu way igu soo bootay isku kay martay dabeetana wuxuu iska furfurbanaysa waan deen xalin baa way haysato waxaan isleeyahay buu yiri what's going on maxaa jira waan iska furfurbanaysa waxaan ku buu yiri meesha meeting baan dad baan sugayay de leave me alone marka inankii gurigii uu ka guuray gurigii wuxuu sii waqti si nafisto hayra kala degto dabeetana ka fikirto iyadu waxyaabaha ay sameynayso inay sax yihiin iyo inay dama taqaanaa khalad yihiin iyadu ka fikirto gurigii marka inankii chance buu sii guriga uga baxay markuu guriga uga baxay inankii Abu Daw lacagtana haystay uu soo fikiray balaan buu soo dhigay balaanku soo dhigay baa waxay ahayd gabadhii wuxuu ku yiri aheede ninkan mudoonaysa inaad ka furtid saan adiga sumcada kaaga xumayn because adiga hadad iminkiisa soo taagtay taa wuxuu soo ogaanayo xoranayaa nin bay yani iga baxday adoo tolan adiga ayaa de sumcada lagaaga ciyaaraya marka si aan sumcada adiga lagaaga ciyaarin sumcadaadu aanay waxba noqon gabadhii wuu ka fikiraya badbaadinaya hadoo ku toobku aad buu wanaagsan yahay uu badbaadinaya gabadh badbaadinaya wuxuu ku yiri hadan saan sumcadaadu wax kaaga noqon aanay sumcadaadu xumaan anigu ninkan aan balaan u dhigno haye ninkan wuxuu yiri ninkan gabadh aynu korka ka saarno haye marka wuxuu yiri inankii Xamsa ahaa maalin maalmaha kamida balaanka marka ila fahmo oo inankan doobka ah lacagta haya ayaa balaankan soo dhigay wuxuu isleeyay gabadha hadhow toole oo guursanaysaa yaanu ninkan hadhow toole odhanin gabadh ninba iga baxday yani oo gabadhii aan magaci ka xumaan u isleeyay wuxuu markaasaan isaga joogay maalin maalmaha kamida ayaa wuxuu yiri Layla soo hadlay waxa laygu yiri arrin caynkaas ayaa lagaaga baahan yahay lagala hadlaya marka hundalka caynkaas ugu kaalay arrinka laga hadlayay wuxuu yiri arrin aad iyo aad u important ayuu ahaa doonayay inaan ka hadlo arrinkii hundalka meetigay arrinka marka ninkani muu ogeyn waxba kama ogeyn doob arrinka ninkan ugu dhex jiro waxba kama ogeyn laakiin doob waxa u sheegtay gabadhii ayaa u sheegtay ku tiri arrinka caynkaas ayuu mantaqan u soo bixi karaa oo meel u iman karaa ama hundal u iman karaa marka doobkii wuxuu isticmaalay arrinkii ninkii important oo ahaa uu doonayay ayuu doobkii isticmaalay inankiina telefoon baa la soo diray wax lagu yiri arrinka caynkaas lagala hadlayaa kaalay oo noo kaalay oo hundalka caynkaas lagu kaalay okay wuu yiri inankiyo bigiyo balow soo yiri uu soo labistay hundalkii wuu yimi hundalkii waa la kaxeeyo yani qol ayaa la geeyay qolka marka hadee wala fangareynaya dadkan gabadhan meesha timi iyo dadkan meesha hundalka inta waa la fangareeyo lacag baa la siiyay marka hadee mishku uu dhigan yahay oo la soo xiray inankii hundalkii waa la geliyay qolkii waa la geliyay qolkii markii hundalkii la geliyay inankii waa looga baxay baabkii waa la xiray suu sugayay dadkii inuu yimaadaan la hadlaan arinku doonayay in loo fuliyo ayaa qolkii waxa kaga soo baxday gabadh qaawan half naked oo wuxuu yiri maxay tahay bajaamo xiran bay iga soo baxday waan naxay buu yiri waan booday waxaan ku buu yiri what's going on marka gabadhu absolutely Soomaaliyeed maaha gabadh la soo kareystay waa gabadh cadaan waan booday waxaan ku yiri what's going on room khaldan baan maxaa meesha ka jira what's going on waan naxay buu yiri kabacdina waxay igu tiri buu yiri gabadhu way igu soo bootay isku kay martay dabeetana wuxuu iska furfurbanaysa waan deen xalin baa way haysato waxaan isleeyahay buu yiri what's going on maxaa jira waan iska furfurbanaysa waxaan ku yiri meesha meeting baan dad baan sugayay de leave me alone sida way igu dhigtay kuma sii daynayay yani caawa inayna halkan de wait ya fahmaysan si fiican fahmi caawa waxa tawayna halkan sheekadu dhadhac ya xad ugu diitay oo ku sidee meel ay diidi kartaa shuufi hada inankii wuxuu yiri markaa waxaan dareemay markiiba inuu jab ku jiro dhibaato ku jiro oo iska sii daayo way igu dhagtay markii dambe dagaal bay ugu bedeshay sheekada qaylo ayadii baana mataqaanay markii dambe timihiis ka rifrifto xagatay balaayo isku samaysay naagtay dhulka isku dhufatay markaas wuxuu yiri baabka ka booday xar baabku kan ka booday carray isla markiiba ku indhaga garacdo waxay tiri booliis waa lagu yeeray iyadoo meesha rafanaysa oo is xagatay oo dharkiis ka jajado walba samayso
booliska markuu meesha yimaadee ayaa dee raboorkii laga qoro wax lagu yidhi waxaa kuusan waxay ninka caynkaasa dhulka iigu yimi wuxuu isku dayay bay tiri wuu isku dayay laakiin wuu mari waayay ilaa test baa laga qaaday adduunkan waa adduun horumaray adduunkani waa adduun horumaray xitaa iban hadday tiraado wuu isku day test baa laga qaaday inuu isku dayin kale marka wax lagu leeyahay waxba isku mudayin marka waxay wuu isku dayay waxba dee laakiin si u baxsado marka damban suuragal laakiin taa laftigeedu waa dembi inaad qof khasabtida isku daydid iban waxba ku hirgelinba haddaad isku daydid dee dembi weeyaan taa laftigeedu ma fahamtaa marka wuxuu inankii booliis lalayaa iga daba yimi buu yidhi waa la xiray waa la kaxeeyey police stationka la geeyey faraha laga qaaday pictureka laga qaaday wax walboo laga qaaday wuxuu igu yidhi wax lagu yidhi maxaa dharka tuntay waa la waraystay sheekada si ahayd baan ugu sheegay exactly waxaan ku dhabu yidhi sheeg caynkaasa ayaa lay soo wacay meeting baan u socday aniga lambarkii lagaa soo wacay keen telefoonkii waan u dhiibay lambarkii waan u tusay wixii oo dhan informationkii oo dhan interviewgii waa lagu celceliyey wax la isleeyahay bal inta heer inuu isa siijiyo lagu celceliyey gabadhii baa iyadana gooni loola baxo la waraystay interviewgii lagu celceliyey yacni inay isdhaafto marka isdhaaf fara badan ayay meeshii keentay iyo gaaf fara badan bay keentay ninkan horomeedu aragtay haabay tiri haddana ninkan miyaa taqaanay maya bay tiri way kala hadashay markay kala hadashay ay booliiskii days yirahdeen waxaan waa setup ninka loo soo setup gareeyey oo loogu talagalay waxayna hadda laysku daalin adigu markii dambe waxaa lagu xiday mashiinada dadka proof gareeyay qofku inuu run sheegayo inuu been sheegayo ayaa lagu xiday yadii isagiina lagu xiday isagii markuu mashiinkii lagu xiday uu dee sheegay wixiisoo dhan waxay noqdeen run inuu sheegayo oon been sheeginin yadii markii lagu xiday mashiinka ay hadashay wixeedii dhan waxay noqdeen been inay been sheegayso kabacdina dee iyada baa interviewgii dibadda loola soo baxay booliiska waxay yidhahdeen waa lagu xidhay jeel baa lagu dhigay because qof dhan ayaad noloshiisii khalkhal gelisay sheeg meeshan sheekadan meeshay kaaga timi iyo dhibaatadan aad keentay meeshay kaaga timi sheeg tayada say nafteedu u seef garaysa ilaa lacag waxba uma taraysa iyo 20,000 iyo 30,000 oo la siiyo ilaa waxba uma taraysa say nafteedu u seef garayso marka waa inay iyadu dee runtii sheegtaa iyadii waa markaa dee runtii meeshii lasoo fadhiisato tiri anu ma garanayo lacag baa lay siiyey sheekada caynkaas iga soo gashay ninka caynkaas ila soo xidhiiday ninkaasaa lacagta ay siiyey igu yiri sheekada caynkaas deji waxaan isla haawaytay sheekadu dee saa uma sii weynaanayso lacagtaada qaado aniga lacagta ila weyneyn marka lacag fara badan buu i siiyey waa kaa marka waxaa la islahaa aan idin soo dhaafay waxaa islahaa ninkan waxaa ku shaambadaysaa inuu gabadh kufsaday si ay gabadhu u boodo oo ay u tiraado hayaay faamligaygiiyow ninkii qabay ee 2 carruur ay ka dhalay naag buu kufsaday waa warqadeeda laga siiya oo dadkii oo dhan ay ninka ugu boodaan oo u yiraahdaan waa ninku daafada oo naag kufsada la yiraahdo oo inanka saa magaca looga dilo iyaduna ay warqadeeda ka qaadato marka iyadii ceebka saliima warqadeeda inta qaadato halka intay ka baxdo toobkii ilaa halkan uu taagan yahay toobkii la isku dhaco oo la isku gursado ayay rabtaa toobkuna saasuu situationka u dhigtay wuxuu is yiri gabadhan ceebka saliim ka dhig warqadana uga qaad adiguna teekunidaada oo la baxo gabadhaada guurso ayuu is yiri saasuu is yiri mogta laakiin sheekadii markay isku wada kashafantay gabadhii runtii sheegtay booliiskii ogaadeen waxay dhan isku qarxeeneen dee ninkiina loo tegay booliiskii maxaa waxa kugu kalifay sheekha soo fadhiiso lacag iyo waxaas ma saarsi markii sharcigu yimaado sheekadu waa adagta maxaa kugu kalifay waxan baa lagu yiri inta lasoo fadhiistay sheekh xagad ku waday sheekada kubadda xagad ku waday dee dabatan sagiina waxay noqotay inuu runtii sheego yiraahdo gabadh saa jecelahayo ninkii gabadhiisii weeyaano inaan maxay tahay dee aan wadada banaysanaan rabnayo oo aanay gabadhuna waxeeda korka ku qaadan ciiboobin baan rabnayo markaa saasaan sheekada u multahnay saasaan sheekada u dhignay hadal iyo dhammaantii xamse sheekadii oo dhan oo duduban u ogaaday gabadhiisi waxaan oo dhan inay ka dambeysay iyo ninka doobka ah ee isa soo helay inay ka dambeeyeen xamse gabadhii wuu furay warqadeedii buu siiyey ninkii doobka ahaa iyo gabadhii hadda cadaanka ahayd ee lacagta lasoo siiyey ninkii doobka ahaa labadoodiiba waa la xiday jeelka ayaa loo diray waxay xidhnaayeen 9 bilood 9 months ayay jeelka ku xidhnaayeen kawaran isagu inuu igu yidhi markuu xidhnaa 3 bilood buu intii kala iibsaday jeelka intii kale wuu iibsaday isagu ayuu igu yidhi laakiin sidee kolleyba jeel gala oo xidhmay ayadina nin la-aan ba halka ku dhacdo ninkeedii dee waa kan mataqaana ka tegay warqada siiyey marka jalaafada
iyo satcabka iyo beenta sida loo dhigo soomaali way ku horumartay wallaahi bilaahi horumar aad iyo aad weyn baynu ka gaadhnay yani in dadka jalaafa loo dhigo in dadka la cambaareeyo inaanad waxaan qofku kugu samaynin aad ka samaysid shax in la digo buggii qalinta lasoo qaato yaa saasoo kale shax loo soo qorto oo laga qofkaasaynu suuqa ka saaraynaa maxaynu samaynaa dabeetana halkaa maxaa wax inooga iman karaa dabeetana halkaasa laakiinse dee ilaahay ayaa meel walba jooga ilaahay waxba kama qarsoona ilaahay dee waa caadil ilaahay waa raxmaan ilaahay waa raxiim ilaahay waa qaadir mid waalan tahay ilaahay haddaad mataqaana qofka biniaadanka ilaahay hadduu isku hadlayo waxba kama xumaadaan marka xamse aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaantiinba aad baan u wada salaamayna kolley waa sheeko wax ku qaadasho leh niman fara badan oo dunida dacaladeeda joogna waxaan leeyahay walaalayaalo subsada walaalayaalo meelaha gelisaan subsada walaalo imika dumarkii intooda faraha badan dumarkii dee waxyaaba fara badan ay ku kacayaan ayaa jira marka intooda faraha badan oo dumarku way wanaagsan yihiin maxuma laakiin dumar fara badan waxaa jira waxyaabaha iyo wax kasii daranba ku kacayo oo samaynaya ayaa jira marka waxaan idin leeyahay bal hadda dhuuqdayna yara hubsada walaalayaal meel walba doob baa iska taagan lacag haya doobba meel walba iska taagan taa haya yaa ugu damaaceeyay xabadaada iyo noloshaada waxaa ugu damaaceeyay oo lacag baan haystaa wax walba waan kala tuuri karaa waan samayn karaa yaa markaas khayr fara badan baan idin rajeynaya aad waan salaamay xamsana aad baan salaamayna dhammaantiinna xamse soo wada salaam walaalayaal waa dulmane inankaas waa dulmane wallaahi waa la dulmay markaas soo wada salaamay dhammaantiinba aad baan wada salaamaya khayr fara badan baan idinka tegay assalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.